daawadayaal qaybta labaad iyo wararkeennii iyo warbixinadii cabdinaasiyada dabcan waa 13 September 2018 waa khamiis waa mar kale barnaamijkeena falaqaynta dunida hadii alla idmo bari barnaamijkeena waxaynu ku qaada dhigi doonaa arrimaha cusub ee dhinaca istiraatiijiyadda military dhaqaalaha iyo tooqa xooggan ee dalkaasi Ruushka soo saaray ama la soo banbaxay iyo waliba khatar xooggan oo ku soo aadan dalkaasi Turkiga iyo waxay tahay iyo sida dalkaasi Turkiga ugu diyaar garoobayo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa sida Ruushku uu u daneynayo ama uu aad ugu daneynayo inuu dhimo colaadda kala dhaxaysa wadamada bariga oo dhan ama caalamka bariga isku yaala asagoo u diyaar garoobaya xasarad weyn oo kaga hortago wadamada galbeedka ayaad ku daawan doontaan qaybtii labaad dabcan xoogaga Suuriya ee Mareykanka uu taageero ayaa bilaabay wajigii ugu dambeeyay howlgalka ururka Daesh uga sifeynayaan goobihii ugu dambeeyay waqooyi bari ee dalkaasi Suuriya sarkaalka u sarreeya militariga Britain ee hogaamiyo isbahaysiga Mareykanku isla markaana kuwan dagaalka kula jira Daesh ayaa wuxuu sheegay in ay si dhab loo oran karo inay jabtay kooxdaas balse wuxuu sidoo kale ka digay khatarta ka imaan karta soo laabashada kooxaha xaq jirka haddii aan dadaal weyn lagu bixin buuri sidii loo xalili lahaa buuri dhibaatooyinka iyo masiibooyinka dawlad xumo iyo amni ee ka taagan dalalka Syria iyo dalkaasi Iraq sarreeya gaas Felix Gedni ayaa sidoo kale sheegay in bulshada caalamka looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan wixii laga yeeli lahaa in ka badan 600 oo dagaalyahano ajaanib ah ay ku jiraan kuwa British ah oo la qabtay tan iyo intii dagaalka culus halkaas ka soconayay Major General Felix Gedni ayaa sheegay in xoogaga Mareykanku taageero ay dhaqso u gaari doonaan xilligii ugu dambeeyay xoreynta dhammaan dhulka ay Daesh ka talin jirtay dalalka labada ah ee Suuriya iyo Iraq balse taliye ku-xigeenka isbahaysiga ayaa sheegay in wali dadaalo waaweyn loo baahan yahay si loo xaliyo ayuu dhibaatooyinka gobolka ka tagan iyo in la xaqiijiyo in Daesh si dhab ay u jabtay war kooban oo uu siiyay saxafiyiinta magaalada xarunta waa dalkaasi Britain ee London ayuu General Gedni sheegay in Daesh goor horeba ay qaab dagaalkeedii u bedeshay wuxuu ugu yeedhay ugaarsi iyo ku dhufo ka dhaqaaqtaas oo sheegay inay tahay maalmihii ugu dambeeyay iyo nafla caari wuxuu sidoo kale sheegay in kooxdu ay wali khatar ku tahay UK Mr Gedni General Gedni wuxuu sheegay in 600 oo dagaalyahano sheeyaa lagu qabtay gudaha Suuriya oo ay ku jiraan wuxuu ku tilmaamay tiro yar oo dhalatay Britain oo sheegay in khatar bahsan ay ka soo jiijeeladay ma garan karo sida laga yeeli lahaa sababtoo ah waa su'aal siyaasadeed oo weyn waan ogahay wixii aan lagu falaynin dadka inaan waxba lagu falaynin dadkaas ayuu yiri waayo waa dad bahaloobay kuwaas oo wali khatar ku ah buuri annaga iyo qarankeen waa in aanay baxsan oo kol kale aysan qaadin buuri weeraro qaranka ka dhana waa Britain iyo waliba adduunka oo dhan diyaarad ee dalkaasi ayaa wali waxa ay wadaan duqeymo xooggan oo ay ku bartilmaameedsanayaan kooxaha iyo ku sugan tahay kooxda ayaa si weyn wali u wada duqeyn kala joogsi lahayn oo baahsan sida ay wararku sheegayaan daawada qiimaha leh wali wararkii warbixinadii dhinaca diblomaasiyadda ayaan ugu wadnaa walina bartaka kaga jirnaayo qodobo xiiso leh baa inoo soo socda haatanna wali waxa dalkaasi Mareykanka gobolka ka tirsan lagu baaqaya inay dadku baxaan dhaga adkaan xooggan ayay ka cabanayaan gudoomiyaasha labada gobol ee Carolina loo yaqaan waa South Carolina iyo North Carolina ayaga oo dadka ugu baaqay in ay haystaan saacadihii ugu dambeeyay ayadoo daqiiqad kasta oo hadda intaanu khadka ku jirnaa la sheegayo in dabaysha la yiraahdo Hurricane Florence ay ku soo degi doonto labadaasi gobol isla markaana la aaminsan yahay inay u kala jabtay hadeerto dabayshu qayb badda ka imaanaysa iyo mid raacaysa laamiga ama dhabaha weyn ee loo yaqaano I26 dawladda ayaa waxay ka codsatay dadka in ay cararaan maadaama dawladdu karaankeedu dhan ay isugu geysay in ay saarto dadka badankooda waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper wuxuu yiri ha gelin khatar naftaada haddaad joogto naftaada ayaad khatar gelisay hana isku dayin hadhow markay dabayluhu bilowdaan inaad cararto iyadoo duufaantu ay dili doonto adiga iyo ubadkaaga iyo ehelkaagaba hadeer waxaan ka codsanaynaa inaad cararto hadaadan haysan gaadiid nala soo xidhiid waxaana la sameeyay lambaro dadku ay ka codsan karaan baabuur iyo waliba diyaarado helicopter gobolka kale ee South Carolina gudoomiyihiisa Henry McMaster ayaa isaguna sheegay in dadka hadeer cayriyeen ay tahay ku dhawaad 1 milyan balse wuxuu ka rajo qabaa in 300 oo kun ay cararaan ka hor inta aysan la gaadhin baalidi habeenimada caawa oo la sheegay in ay dabayshu gaala bixi doonto inta badan badda iyo bariga wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in gabi ahaan albaabada la isugu dhuftay goobihii ganacsiga waaweynaa waxaana goor horeba goobaha ganacsigu gabaabsi ku ahaa alaabaha qutul daruuriga sida rootiga caanaha iyo waxyaalaha kale dadku u baahan yihiin kadib markii dadku horey ay u adeegteen wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Mareykanka lagu daaburay ayagana magaalooyinka si ay
u amraan wax loo yaqaano inay xoog dadka ku saaraan iyo in ay wadooyinka xiraan sidoo kalena waxay ku soo rogeen gabi ahaanba bandow magaalooyinka waaweyn ee labada gobolka Virginia ayaa wali asaguna khatartu taagan tahay sayashee hay'adda saadaasha hawada ayaa sheegaysa in xawligii ay ku socotay Florence ay hadeertay yareynayso isla markaana markay soo caga dhigato la fili doono in ay yareyso xawligii faraha badnaa iyo daadadkii ay tufisay wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in bariga gobolka North Carolina ay dad badan wali ku xaniban yihiin kuwaasoo la aaminsan yahay baa leeyahay in ay ku dhici karto tornaadada iyo waliba dhibaatooyinka xooggan oo ilaa jimcaha sii socon doona warar kale ayaa sheegaya in dawladda dalkaasi Mareykanku ay doonayso in 10 milyan oo ruux ay TVyada ku xidhnaadaan oo goboladaasi ka agdhow kuwaasoo iyaga lafkoodu oo gobolada la yiraahdo bariga ama gobolada la yiraahdo xeebaha bariga ee dalkaasi Mareykanka halka nagala socotaan وهرفني ميديا يوركي قدام ميديا وربحني دين عدنا سيادة هاتنا هنغري يمدوغ يوروب محاك رايست مدوغ يوروب برلمان كيسي أيا كل كي ugu horeysay tan iyo intii baarlamaankaasi la dhisay ama baarlamaankaasi la sameeyay waxa ay u codeeyeen oo si aqlabiyad leh ugu codeeyeen in dal kamid ah dalalka xubnaha ka ah 28 la mariyo wax loogu yeeray ciqaabtii ugu adkeyd 448 cod ayaa si aqlabiyad loogu ansixiyay in dawladda dalkaas Hungary ay ku tumatay baa leeyahay meeqaamkii midowga Yurub iyo in ay si buuxda u samaysay wax loogu yeeray deelqaaf dhinaca sharci xuquuqul insaanka iyo dhinaca bini'aadanimada oo ay ku tumatay waxaana diiday 197 halka 48 ay ka kaceen ama ay ka maqnaayeen qodobka toddobaad ee axdiga midowga Yurub ama dastuurka midowga Yurub ayaa qoraya in dal kasta oo ka tirsan EU hadii uu ku kaco baa leeyahay waxyaalo ka dhana waxa loo yaqaano tirarka midowga Yurub lagu la xisaabtamo isla markaana dalalku ay saaraan cunaqabateyn iyo in talaabo xooggan sameeyo dalka Dutchka oo xubnaha dalkaasi Dutchka ama dalkaasi Netherlands oo ayagu si xooggan arinta u abaabulayay gabadha la yiraahdo Judith Sargentini oo iyadu aan nasan tan iyo intii ay barnaamijkan ka soo shaqeynaysay oo doonaysay in dalkaasi Hungary iyo waliba dawladda ka jirta cadaadis la saaro ayaa qosol la dhacday iyaa leerkayadu qosol la dhacday kolkii baarlamaanka codeyntoodu ay si lixaad u dhacday waxayna tiri tan waxay muujinaysaa calaamad xagga waxtarnimada loo qaaday taasoo ah inaynu aqbalay mas'uuliyadii ina saarneed taasoo doonaysa in aynu u bedelo ficil ayaa sheegtay dawladda dalkaasi Hungary iyo waliba ra'iisul wasaarahooda Orban ayaa waxa lagu eedeeyay inay ku tunteen dhamaan shuruucdii baa leeyahay gabi ahaan iyo gaar ahaan baa leeyahay kuwii dhinaca xuquuqul insaanka iyo kuwii waxa leeyahay dadnimada ra'iisul wasaare Viktor Orban iyo xisbigiisa ayaa lagu eedeeyay inay ka soo finirayso nacayb xoogan madaxweynaha guddiga midowga Yurub Nicolas Jean-Claude Juncker ayaa asaguna ka hor intii aan codka la gelin wuxuu yiri waxaynu ku adkaysan doonaa isla markaana aynu doonaynaa inaynu ka hortagno dacdooyinka iyo dagaalka ka dhanka ah buu sharciga iyo kala damaynta sidaa daraadeed ayuu yiri baarlamaanku waxay maanta haystaan fursad qaali ah oo ay ku cadeeyaan taas wuxuu sheegay in ay sii wadi doonaan in dawladda dalkaasi talaabo laga qaado maadaama baarlamaanada dalalka ay isku raaceen isla markaana xukuumad kasta oo kamid ah midowga Yurub intii loo diro ama hawshii loo diro ee ah in talaabo laga qaado Hungary ay qaadato wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Hungary Peter Szijjártó oo shir jiraa'id ku qabtay Budapest magaalada caasimadda Hungary ayaa ku tilmaamay go'aanka mid la cambaareeyo isla markaana wuxuu sheegay mid ka dhana inuu yahay dadka reer Hungary oo iyagu go'aansaday ayuu yiri inay iska taakeeyaan wuxuu ugu yeeray dadka soo magagaliya doonka ah sida indhalaanta dalkooda u soo galaya taasoo ah inay si dhab u joojiyeen tan iyo 2010kii dalkaasi Viktor Orban ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa midigta fog ayaa haystay kuwaasoo aad u nacab dadka soo galootiga waxaana lagu eedeeyay xataa ilaa xad inay dadka ka goostaan cuntooyinka iyo in dhawaan baarlamaankoodu ay si aan kala had lahayn ugu codeeyeen in la ciqaabo oo maxkamad la saaro isla markaana jeel la geliyo qof kasta oo naxariis u sameeya dadka soo galootiga ay ku jiraan hay'adaha dhinaca xuquuqul insaanka u dhaqdhaqaaq madaxa guud ee hay'adda loo yaqaan Amnesty International ee dalalka midowga Yurub Biala Hettin ayaa waxa ay ku tilmaantay go'aanka midowga Yurub mid taariikhi ah waxayna sheegtay in ay u baahan yihiin in si dhaqso ah loo dardargeliyo isla markaana ay u sheegaan in aysan midowga Yurub ama dadka reer EU iyo waliba reer Hungary aysan aqbalin waxa ay ku tilmaantay gobol ku timashada xuquuqul insaanka iyo shuruucda midowga Yurub iyo kan aadanimada ee Hungary ku dhaqaaqayso waxa wararkii ugu dambeeyay sheegay in dawladda dalkaas Hungary ay sheegtay in ay doonayso inay arinta ka qaadato racfaan isla markaana ay dib u loo dhageysto cod mar kale si
kastaba ha noqotay arrintan ayaa loo arkaa mid dhirbaaxo ku ah dowladda dalkaasi Hungary iyo dalalka kale ee ka soo fininayso nacaybka xooggan ee dadka soo galootiga iyo in dadka majaxanjaxnimo ah loola dhaqmo daawadayaal haatanna madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ayaa kolkii ugu horeysay ku dhawaaqay in uu dalkiisu doonayo inuu dhameeyo xasarada 70 sanadood tirta ee kala dhaxaysa dalkaasi la yiraahdo Japan. Mr. Vladimir Putin oo ka hadlayay shirka magaalada bariga ku taal ee la yiraahdo Vladivostok ee shirka wadamada bariga shirka ganacsiga wadalka bariga ayaa sheegay in haatan ay doonayaan arintaas inay soo dhameeyaan. Waxa uu yiri asagoo ka hor hadlayay shirkaas isla markaana uu dhinac fadhiyay ra'iisul wasaare Shinzo Abe dalkaasi Japan ayuu wuxuu yiri hadda waxa ku soo dhacday maskaxdayda fikrad taasoo ah aynu dhameeyno isla markaana aynu saxiixno heshiis nabadeed oo intuusan dhamaan sanadkan isla markaana aynu ka gaadhno arintaasi si shuruud la'aan sida ugu dhaqsaha badan aynuna ka wada hadalno jasiiradaha aynu isku haysano ayuu si sareexa u yiri taasoo inta badan ay sacab la kaceen dhamaan dadkii goobta fadhiyay oo gaarayay 5,000 oo erga ah oo ka kala socday dalal badan oo caalamka ku kala yaala. dalka Japan ayaa waxa laga qabsaday oo midowga Soviet ka qabsaday deegaano markaasi jasiirado istaraatiijig ah oo la kala yiraahdo Kuril kuwaasoo sanadkii 1945 kolkii afka ciida loo daray boqortooyadii Japan ay ciidamadii midowga Soviet ka faa'iideysteen jabkii taasoo dabcan noqotay markaasi inay qaabil liqaa ay u qaateen kadib markii Japan afka ciida loo daray. dalka Ruushku wuxuu u bixiyay tan iyo inta wixii ka dambeeyay jasiiradaha Southern Kurils ama koonfurta jasiiradaha Kurilis halka dalka la yiraahdo Japan iyaguna ay u yaqaanaan Northern Territories in Japan ama waxa loo yaqaano dhulka Japan ee dhinaca waqooyi ayaa loo yaqaana dowladda dalkaasi Japan ra'iisul wasaaraheedu kama jawaabin arrinta isla markaana ma soo dhaweyn mana diidin wuxuuna uga socday arrin kale hase yeeshee madaxa golaha wasiirada u sareeya dalkaasi Japan Yoshida Suga ayaa goordame la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri ma rabo in aan gacan dhaafo ra'iisul wasaaraha isla markaana aan ku rooro ayuu yiri soo jeedinta Mr. Putin laakiin wuxuu yiri wax kasta oo ay noqotaba waxaan kaliya aan cadeey karaa ilaa aanu dhameeyno qadiyada Northern Territories ama dhulka waqooyi ee Japan inaynan saxiixi karin heshiis nabadeed oo dhab ah. sidoo kalena waxa uu sheegay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda dalkaasi Russia George Kundas in dowladda Japan ay mar walba hoosta kaga lamaan tahay dalkaasi Mareykanka isla markaana aysan doonayn inay ku dhac ka sameeyaan oo halkaasi ka dhasha waa sida ay markaasi u sheegayo wasiir ku-xigeenkaasi arrimaha dibadda dalkaasi Russia. si kastaba ha noqotee dalka Japan ayaa dhawaan wuxuu sheegay in uu kor qaadi doono gantaalaha difaaca wuxuuna diiday dhowr jeer inuu maalgelin ku sameeyo dalkaasi Russia iyadoo ay shuruudaha ugu badan ee dalka Russia ay ka doonayso Japan ka kaco iyo inuu sida ugu dhaqsaha badan dabcan markaasi uga soo tanaasulo ama uga guuro dhulkaasi amaanaal